الله الرحمن الرحيم أصحابتاي كلنت وناكسن meel kasta oo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbixinadii ugu dambeeyey ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan saaxiibayaal eegi doonaa kulamada caawa laga dheelayo Champions League maadaama Champions League uu xilligan leeyahay xamaasad gooniya maadaama xalay la soo daawaday kulan xamaasad wata oo weerar iyo weerar celis ah ka dhex marayna kooxda lagu magacaabo Bayern Munich iyo kooxda lagu magacaabo Barcelona kaasoo ka dhacay garoonka ay ku dhashay kooxda Bayern Munich marka saaxiibayaal caawa waxaa jira kulamo kale oo adag oo xamaasad leh la daawan doono dhammaan adduunka oo dhanna laga sugayo kulamadan soo socda ayaan saaxiib eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janalkeenan fadlan subscribe noo saar waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga saaxiibayaal caawa waxaa dib loo daawan doonaa Champions League oo xalay lugtii labaad soo biloomay markaasoo kooxo badan oo waaweyn ay afka isgeliyeen ama kooxo badan waaweyn oo loo filan karay inay sanadka ku guuleysan doonaan Champions League ciidda afka loo geliyey waxaana ka mid ah kooxda kubadda cagta Barcelona oo loo maleynayay inay sanadkan ka adag tahay sanadihii hore ee lasoo dhaafay laakiin waxaa la ogaaday kooxda Barcelona kooxdan jacburka ah uu isku soo aadaadiyey xilligii hore ee Barcelona iyo xulka Spain tababare Xavi Hernandez inay fashil iyo ama kaag ay ku sugan yihiin saaxiibayaal marka waxaan eegi doonaa oo aan sii falanqayn doonaa kooxaha sanadkan la filay inay meel fiican ka gaaraan Champions League haddeena saaxiib waxaan guda geli doonaa kulamada caawa xamaasadda goonida leh oo aad iyo aad isha lagu hayo maadaama kulamadaas ay yihiin kulamo beri dhagax ah waxaana saaxiibayaal caawa haddii xalay uu Roberto Lewandowski ka hor yimid naadiga lagu magacaabo Bayern Munich oo waqti dheer uu soo dheelayay caawa waxaa ka hor imaan doona naadigiisii hore naadiga uu ku soo jaanqaaday naadigii uu ku qangaaray kubaddiisu laacibka lagu magacaabo Erling Haaland oo neenka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Manchester City waxa uu ka hor imaan doonaa naadigiisii hore ee Borussia Dortmund uu waqti badan u soo dheelayay goolal badanna uu u soo dheelayay waxa uuna ku leeyahay saaxiibo badan ma la arki doonaa Erling Haaland oo isha lagu gubo maadaama xalay la ogaa Muller oo la ogaa xalay inuu si xun u fiirinayay laacibka Barcelona neenka uga ciyaara ee Roberto Lewandowski oo waqti badan ay iska soo garab ciyaarayeen saaxiibayaal marka caawa ma laga yaabaa kooxda kubadda cagta Manchester City in afka ciidda loo gasho maadaama xalay Barcelona afka ciidda loo gashay laakiin saaxiib waxaad ogaanaysaa in kulankan uu yahay kulan xamaasad leh kulankan uu yahay kulan aan inaban caadi ahayn kooxda kubadda cagta Manchester City-na ay tahay home oo ay ku soo dhaweynayso kooxda Borussia Dortmund garoonka la dhaho magaciisa Etihad Stadium marka saaxiibayaal waxaa ognahay kulankaas inuu yahay kulanka caawa u xiisaa badan isha lagu hayo in la daawado maadaama uu kulankan yahay kulan xamaasadiisu wata laba naadi oo weerar ah ciyaaryahano fiican wata ay iska hor imaan doonaan waxaa loo badinayaa kulankan in kooxda kubadda cagta Manchester City oo ognahay inay tahay koox aad u xoog badan sanadkaana goolal badan dhaliyay waxayna ka dhasheen horyaalka Premier League 14 gool waxaa loo maleynayaa sanadkan ilaahay hadduu nafta noo dayo aan daawan doonaa in kooxda kubadda cagta Manchester City ay tahay koox mucjiso ah ayna ka soreyn kardho oo ay madaxa iyo mijaha ay u duugi doonto kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund marka saaxiibayaal lama filayo in kooxda Manchester City oo ah koox aad iyo aad u xoogan dhalinyaro iyo xirfadlayaal haysta waxayna haystaan neen qaaraamiya ay ka soo gateen naadiga ay caawa la dheeliyaan ee Borussia Dortmund marka caawa waxaa leeyahay Borussia u dulqaado laacibkaaga halyeygaaga ninka gool mar walba laga filan karo adaa iska iibiyey Erling Haaland waaye caawa madaxa duuba ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund markaa saaxiibayaal kulankan wuxuu noqon doonaa kulan aad u xamaasad badan naadiga lagu magacaabo Borussia Dortmund iyo xidigoodii Erling Haaland ayaana dib u midoobi doona saaxiibo badan oo isku soo xiiseen oo ilaa horyaalka bilowgiisii aysan arkin ayaa dib isku arki doona saaxiibayaal kulankana wuxuu noqon doonaa kulanka ugu xamaasada badan oo cawalada laga daawan doono dhammaan dunida oo dhan saaxiibayaal waxaa eegi doonaa kulanka ay dheelayso naadiga lagu magacaabo Real Madrid waxaa ognahay kooxdan kubadda cagta Real Madrid inay tahay mar walba kooxda loo filan karo inay soo qaado Champions League maadaama sanado badan la arkay in kooxdan lagu magacaabo Real Madrid ay tahay koox awood leh markii la joogo championkana awood waa dhaafta marka LB ayaa la ciyaaraysaa caawa Real Madrid waxay ku soo dhaweynaysaa garoonkeeda Santiago Bernabeu
waxaan aan ognahay mar walba oo qof walba maankiisa uga soo dhacaysa in kooxda lagu magacaabo Real Madrid oo joogta gurigeeda oo ah koox champion oo ah kooxda ugu koobka badan Champions League soona qaaday 14 jeer sanadkii dhaweetana u soo qaaday si mucjise ah oo dhammaan dunida oo dhan laga yaabay maadaama naadaasha laga filayay in koobkan ay kula tartamaan adiga lagu magacaabo Real Madrid ay kulli madaxa ka soo jadhay waxaan ugu waaweyn kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ee Chelsea, Manchester City iyo kooxda lagu magacaabo Liverpool oo isla tageen final. Marka kooxdan marba lama filayo in caawa laga raayo ama bridge la gasho. Waa koox champion, waa koox leelinaysa ama hogaaminaysa horyaalka liigaha sanadkan. Marka saaxiibayaal inay soo guuleysto ayaa loo badanayaa, laakiin kulankan waa kulan xamaas leh oo ku soo xiga kulanka u dhexeeya Manchester City iyo Borussia. Marka kulankan ilkaan ayaa lagu hayaa saaxiibayaal. waxaa jira saaxiibayaal kooxda lagu magacaabo Paris baa dheelaysa caawa, Inter Milan baa dheelaysa, marka kooxo badan ayaa caawa dheelaya haddeer Inter Milan waa socotaaba. haddeer saaxiib waxaa dheelay Chelsea oo kale caawa dheelaysa, Napoli waa dheelaysa, Villarreal waa dheelaysa. marka kulamadaas aad buu xiiso badan yihiin. waxaa ognahay kulanka Chelsea u dhexeeya kooxda kubadda cagta lagu qado Salzburg ay tahay koox kulan aad u adag maadaama kooxda kubadda cagta Chelsea bilowgii Champions League afkii ciidda loo diray laguna ceeriyay tababarihii weynaa ee lagu magacaabi jiray Tuchel. marka saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaad leenahay waa macsalaamaysantihiin bilaahi tawfiiq saaxiibayaal.